saraakiilan ku dararta taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed yamaba iyo booqasho iyo kaseedana howlgallo iyo wadana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada sagaalada gobolka Bakool waana waliba saraakiila iyo kooxliye kormeerka kiisho maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur saraakiilan yamaba isugu hogaamiyay General Liban Hussein Ismaan oo soo kumideeyay saraakiisha taliska ciidanka guud ee xoogga dalka Soomaaliyeed Onkoren wayba faafayno ku biyay isla markaasina meelaas ku hadalay taliyaha ururka 44 ee xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Hussein Madow soo waan sheegay intuu soo ka faraxsan yahay inta saraakiishan ku dararta taliska guud ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo onka kooyaan kormeer dawladda federaalka Soomaaliya waan u mahadcelinayaa taakuleenka ayna siisayo ma aragtay sida ay noo garab taagan yihiin iyo shacabkeedaba waan salaamayaa baabuurtan aad u jeedaan 120 kilomitir baa laga soo gudbiyay generaalka waftigu hogaaminayna 20 kilomitir meel ay u jirto degmada Xudur gobolka Bakool ayay halkaas nooga yimaadeen baabuurtan aad u jeedaan iyo madaxdan iyo shacabka halka taagan maxadan Ilaahay baa iskale ayagaan la yimaaday iyo waftigan hogaaminayo gudoomiyaha degmada Xudur iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool oo qayb ku hay wafdigu isugu hogaamiyay generaalka yamayba yoona meelaasay kala kulmeena taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 44 ee xoogga dalka runtii general baartan adargaas way baaha 120 kilomitir la ku kahay ciidamada loo ay lamhamin quraac joomiyo meelteed la rawdatiyo luk bariya jara oo dhabaataysan raashin laan biyo laan kullantaas macna antaas ka galaya iyo jarta uma fadaane oo bilaa hasan waafaji dalkan ani macna deegaankan gobolka Bakool ciidamadan ka sugan ani walin qobada dawladdu warkaan geysidan dawladdu warshe geysidan ciidamadan dhabaatadii haysata arintaas ay seen ku baahna eedana seen kama naqaan waas ma bilaarga sinjeedana waa markii koowad tali ciidan masaana general iyo saraakiisha jaran oo meel ku baasan 20 kilomitir degmada Xudur oo ciidamadan ka kooyan waa markii koowad general arago itigeek dadaalka la hasoobi magaal madaxda gobolka Bakool Xudur walaka noolaha oo nool wadadan dheer iskiiraasa quraac jooma iyo Xudur iskiiraasa iyo tan iskiiraasa beledweyne ilaa quraac joom 120 kilomitir oo wadadaas may mas'uul ku guutada sagaalada mas'uul ku amaanana sharafleeyin qiimileeyin tan kala maysin sheegay geeka may sharafnin baabuurtiin isin aragooyta may galbiyay nan sarkaal oo guutada sagaalada ku tirsan iyo ciidamada guutada sagaalada galbiyeen mar walbana sahan gudbayaan reer Xudur hoob guutada sagaalada hadafan nololiyo halisa ka sugnaado fadhi adowga mar badan iska day in wadadan gooy may diiday Ilaahay diiday may diiday guutada sagaalada General Liban Hussein Ibrahim yamaba isugu meelaasay kala hadalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo waana ka dhiirigeliyay howlo adag ay hayaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed guutadan waxay difaacdaa aad u ballaaran oo aan runtii aan la wajihi karin bay difaacdaa waxay u baahan tahay hub badan waxay u baahan tahay baabuur badan oo dhishikayaal si difaaca loo soo xiro baabuurtan maanta aan dhex taaganahay haddaan u soo noqdo runtii maanta baabuurtan waxa laga soo kaxeeyay meel 120 kilomitir u jirta waa kulay ahaayeen runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddayna ahayn ama guutada sagaalad ahaynna ma suurta gasheen guutada sagaalad runtii saraakiisheeda iyo askarteeda oo aad baan ugu mahadcelinayaa hawsha ballaaran ee u qabtaan dadkooda ay u qabtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa lagu ogaa difaaca kaliya laakiin sidii abaarihii na soo maray oo kale inay gacanna ay ku difaacaan dadkooda gacanna ay dadkooda ku taakuleeyaan runtii maanta sharaf iyo karaamo ayay noo tahay inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu dadkiisa iyo shacabkiisa uu dhimriyo oo 24 saac uu caawiyo waxaan anaga naloo aasaasay ama naloo suubiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan wax ku barannay ama tababarkana uu ahaa canshuuraha dadka shacabka Soomaaliyeed laga qaaday ayaana lagu dhisay xoogga dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed haduuna shacabka jiri lahayna xoogga dalka Soomaaliyeed lama dhiseen
jenaraal liibaan xasan cusmaan yamaba uu sugila dardaarmay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan ka dhiirigeliyay intii iyo sii wadaan howlgallada iyo hayaan bulshada. xamse maxamuud jilba dheere raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Xudur xarunta gobolka Bakool.